ilaan qof kastaba group kastaba qabiil kastaba maaragtay diin dadka ma bari karayaan shareeco ma bari karayaane taas waa inuu yidhaahaa you know what I'm saying ani walaahi biraan ahay anyways dhinaca aabbahay ree xuseen baan ahay marka dadkii cilmiga idin baraya weeye so waxay la shaqayn jireen dad la yidhaaho aaronites la yidhaaho ama kaahiniinta yaa kaahin ma fahanteen oo la yidhaaho waxa weeye the priestly class bay ahaayeen bay la shaqayn jireen marka haddaad u fiirsatid nuux butaani baynu ka hadalnay muuse bixi baynu ka hadalnay waxaa kale nin kale oo kaahin la yidhaahna meesha uu ku jiraa arkaysaa matrixka lagu sheegayo shaxdii o dhan halkaasaad ka arkaysa haddaad wax fahmaysid weeye okay so xitaa haddaad u fiirsasid maaragtay af carabi ahaan naasiya waxaa loo micnaynayaa markuu qofku wax iloobo intentionally ama dee unintentionally hadduu wuxuu iloobo forgetfulness oo waa qof ilowsho badan dee bini aadanku waa dad ilowsho badan markastaba ilaahay muxuu usoo diraa nebiyaal ama mahdiyayaal oo dadka haddana wixii dib qalinka ugu bara markay dariiqa saxdaa ka lumaan markay jihadoodu khaldanaato jihada saxdaa ay ka lumaan marka af carabi ahaan naasiya ereygaaba usoo fiirsada iyoad iska fahmi doontiine okay cilmi ahaan haddaynu eegno scientifically haddaynu eegno waxay noqonaysaa frontal lobes of the head ama the forehead frontal lobes of the brain oo dee maxaa la yidhaha skoolka dabadiisa dhinacan the frontal lobe skoolka dabadiisa waa halkan lagu leeyahay waa ishaada saddexaad ama nuurku kasoo bixi doono ma fahanteen waa scientific ahaan baynu u macnaynaynaa imika so waxaan idhi waxa weeye the frontal lobes of the brain located beneath the skull and frontal lobeku functionkiisu waa maxay executive functioning wax la yidhaaho ayuu ku saabsan yahay oo ku saabsan decision making planning and reasoning fahanka dheer and your problem solving your judgment marka waa very important and iyo dee motor functionka xitaa wixii inaad plan garayso oo execute garaysid inaad plan garayso ficilkii ku dartid basically and iyo voluntary movementska ayuu ku saabsan yahay and also maxaa la yidhaahaa speech production left hemisphereka speech production iyo language processing qofku inuu hadli karayo maxaa la yidhaha languagekii ama afkii ama dee wuxuu maaragtay akhrinayo inuu haddana process garayn karayo uu dee kala saari karayo waxyaalo badan criteria isticmaalayo ma fahantay wax ku kala fahmo discernment waxaan okay sheekadani halkanay u socotaa sidanay u socotaa maskaxda in la iska xada maahe dadkan raba dadka inay adoonsadaan maskaxday rabaan dadka inay ka xadaan and also waxay regulate garaysaa your emotions your social behavior your self awareness gaada marka dadkii maskaxda marka laga gumaysta maskaxda laga koro la adoonsado basically waa dad waxay dadka badankooda ku leeyihiin adoon ilaahay baata adoon ilaahay waxay rabaan inay ku adoonsadaan ay maskaxdaadii kala wareegaan qur-aankuna wuu kaaga digaya taabika suurat al-iqraba ku taala orad iqra akhri baa lagu leeyahay fahan waxan use your discernment ma fahanteen halkaasaan ku joojinayaa intan waa idin salaame